عشاق الجنة العليا ودعاة الرحمة للدنيا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نمان والله دعوانا يا مابا جوكتان وسلامتهن وبرنامج كيني ليبانتا جوكا قيبت اللبي طبانات قيبت سوداء في شيخنا وحان كشيكينا وحي أهيد سيدا رقا أي وكسبان لها يضمك كولا أما حاسس كولا معناتن شيخنا بل سيدا أي ضمك وكسبان كران نمان كولا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. موضوع والبا وقت دير بو باهني خلاصه iyo soo aruurinta waxay tahay dumarku waxay ku kasban karaan ragooda daaima waxa jirta qiso aan jeclahay inaan sheego runaantii qisadaasi munaasabaad iyo meelo kala duwan ayaan ka sheegay oo mawduucan ku saabsan haye ogolaad inaan qisadaas ii soo tafadhal sheekh haweenku mar walba waxay iska jecel yihiin ragooda siday u soo jiidan lahaayeen oo u kasban lahaayeen dumarku saasi mar walba jecel in caatifadooda noocaasa gabadha marka waxay jeclaatay magaalada ay degan tahay inay noqoto gabadha uu ninkeedu ugu jecel yahay saadaradeedu nin xakiima ay u tagtay oo xigmadda aad u yaqaan sax haye waxay tiri waxaan doonayaa magaaladan inay ugu sheekaysato allah noqdana gabadha lambar 1 uu ninkeedu ugu jecel yahay waxaan doonayaa qaabka iyo tariiqada ninkayga ugu jeclaan lahaa maadaama xakiim tahay inaad isiiso wuxuu yiri igu adigu taqaan arintaas waan ku siinayaa waxaad yeelaysaa libax ma taqaan markaas tiri ha libax dadku cunaa libax hay wuxuu yiri 10 xabo garkiisa ka soo jar oo tima ah yaani libax intaad u tagto 10 xabo oo tima ah garkiisa iga soo jar 10 ka xabo ayaan wax kugu samayn doonaa kadibna waxaad noqon doontaa ama aad helaysaa waxa doonayso waxay tiri libax dadku cunaa ma iga deysid wax kale ma haysaa waa wax weyn ha libax adoo hadda libax lagu diray taa waxaad garanaysaa waxyaabaha dadku ay isku kasbadaan inay wax sahlan ahayn oo inay libax ka sahlanayn mararka qaarkood way u baahan tahay in libax la isu diro gabadhii way baxdo waxay u tagtay dadka duur joogta ah ee banaanka iyo baadiyaha iyo waraabaha iyo libax yaqaan waxay tiri libax see loola saaxiibi karaa سؤال في عام نين خبير أو حكومي أنا كو أقان نسيت الله قلا صاحبه علاشة الله قلا صاحبه هيلب سي اللي بيح مركز الصبح ولا بهيلب زيسو وحاول صاحبه مغرسان قبل مركز وحيب بالوضي إنه ينف أريق إنه حول قشة كدينا اللي بيح مال ودكتو هدنا الصبح كلام مال ودكتو هدنا الصبح كلام الصبح والبمركز اللي بيح مال بدقية ودقت بولا واتغانان مركز ورا ماشى أنا كلي كبل الوضي إنه دكتي ويجمد مالي تدمبه ماشى عسكري دكتي مالي تدمبه maalinta dambe hortiisa ayay dhigtay asagoo iska jiifa wuu cunay markaasuu bilowday marka inuu iska seexdo ayuu marka bilaabay tayib sida daraadeed mar alla markuu seexdo ayay bilowday mataqaanaa ii keen inay bilowdo maxaa la yiraahdaa ii keen inay xabad tima ah daf ay ka siiso markuu indhahaas u kala qaadana way saraxdaa berina hilibka u keentaa iyadii wuxuu ka dhigtay walaal buu ka dhigtay cajiib tayib inta markii ay dhamaatay 10 حبة تمها أبي سوقس كدمنا ننكب أوتيم وحيتري 10 حبة تمها واقول ها وعير سيدكو هالشيء ورفي عنها يه 10 كان حبة تمها سيدكو سوقيسي وحيتري وحنكو سوقي طريقة صار مري أو ضد ورابها يقانان لا تشضي وهلب بهلك وقاري هذا بس ارتواض يسوي وحوجر إن مدوني سنة كسبته على شو بوح عجيب وركوا إنت عنتو سمع يعني قبل ومركوا وح أقوم بسن إنك هذا كوكا سبان كرتاي هرتنا على شو بحسوي لكن إيه أقولوا هيه إن قبلها الصومالي ده تلا يرسيه عنت كسترجع على شو بحنينا عنت هذا على شو اللي بحنينا وإن يتهاي عنت عافي ما وضعتها عنت السريد بدن بري السريد اللي بحيي إيه الدلع بلاش إيه باستر ولوب ما ترن ومتغنى له آخره وحاول ينقفك وحوك إيمانيا مع إيمانيا إنه صن وحبها إنه تقبل كريم سيدا دراديد وإن عنtada caafimaadka badan dadka la siiya idan dumarku waxay ku kasbagaan ragooda cuntada kamida waxa kale oo kamida wax la yiraahdo ma gabadha waa loo baahan yahay inta aysan guusan koor in cuntada ay baqato si fiican waa fiican tahay aad iyo aad ba wanaagsan tahay waa ku dhiirigelnaa in koorsooyin ay qaataan qodobka labaad oo gabdhuhu ragooda ku soo jiidan karaan mesela waa saddex qodob waa muhiim mid waxa la yiraahdaa
alcutuuraat أيه midna waxaa la yidhahdaa annadaraat لبو midna waxaa la yidhahdaa allamasaat عجيب صدق saddexdaa qodobba waa muhiim صح alcutuuraat waa barfuunka waa cadarka gabadhu inay tahay gabadh idgoon أيه madax iyo minjo intuu dhaxaysa عرف caraf walidaalika gabdhaha waxaan tala ku siiyaa أيه ee goorta aad raggiina isu qurxinaysaan ood qabaysataan oo dharka intaydan dharka xidhanin صح kareemka aad jirkiina marsanaysaan iyo cadarrada munaasibka ku ah صح cadarrada munaasibka ku ah ninkaaga caafimaadkiisa waxa weeye ninku waxaa laga yaabaa inuu qabo maxay صح وح inuu ku leeyahay cudur uu ku leeyahay maxaa la barfuunada qaarkood سفيان marka ninkaaga aad taqaano cadarrada munaasibka ku ah intaad barfuunka ku darto صح iyo kareemka ood isku darto inaad jirkaagoo dhan mariso limaada jirka marka aad baraf barfuunkii iyo cadarka iyo kareemka iswato markaad mariso hoos buu u gelayaa aad uu carfaa aad buu carfayaa عاجي والله aad buu carfaya laakiin markaad jirka biif meel ka siisahay meeshana waa abaar meeshana way qoyan tahay taa horta waa masale aan ku baran idan cutuuraad baa la dhahaa cutuuraad carafta qodobka labaadna waxaa la yidhahdaa nadaraat waa eegmada عجيب يعني لبسك وعجيب gabadhu markay ninkeeda si cajiiba ugu soo labisato oo qaab cajiiba ugu labisatay gabadha ninka way haysataa labada gacmood bay ku bila shak laakiin waa inay dhakiyo tahay oo taqaano ninkeeda labiska ku habo sidee ku ogaan kartaa marka ayada inuu ka helay ninka waa inuu asagu sheego hore baan u niri waa inuu qofku u sheego oo yiraahdo maxay wallahi waad qurux badan tahay waad fiican tahay dharkan waad ku soo baxday ammaan baan soo marnay qodobadeennii hore iyo xalaqaadkeennii hore inay labada qof mataqaana ii keen waxa jacaylka ziyaadiya ammaanta ka mid ah marka qofku inuu yiraahdo ma sha Allah labiska waad ku qurux badan tahay nooca waad ku qurux badan tahay qofka bini aadamka wuxuu jecel yahay waa dareemaysaa caawadu shaahada jecesheeda jeclaan waan garan karaa waxaan kugu daray baad garan kartaa waa si ziyaadin kartaa laakiin halkaan ii ogol inaan qodob kale ku daro oo aad muhiim u ah haweenka aan sidaas yeelin ee aan raggooda sa iskugu qurxinin ee iskugu qurxinaya oo kaliya aroosyada markuu aroos jiro isqurxinaya ee markay saaxiibo u imaanayaan isqurxinaya oo kaliya gabdhahaasi dulmi bay la imaadeen ogow dulmi bay raggooda ka galeen wabitaali ha sugin inuu jacayl meesha ka kordho bal kala fogaansho ayaa meesha ka imaanaysa qodobka waan baraarujinaya walidaalika ragga qaarkood baa waxaa ku dhacday inuu intii ay dumarkii labisteen inuu yidhi caawa xageed u socotaa wuxuu yidhi xaaskayga markay xaflad u socoto waan gartaa oo maxaad ku garataa way labisataa oo adi laguma labisto maya dharkii baatiga ee basasha ayaa laygula joogaa idan qodobkooda muxuu ahaa yacni cutuuraad kii labaad muxuu ahaa nadaraad kii saddexaad waxaa la yidhahdaa lamasaad mar walbo ay labada qof isu dhow yihiin mar walba oo maxaa la yiraahdaa gabadhu ninkeeda ay dhunkato macsiiso jikada marka uu sii gelayo markuu ka soo baxayo markuu imaado markay sii socoto yaani meel kasto ay iskaga soo baxaan oo guriga dhexdiisa ah oo laga yaabo caruurta waaweyn iyo marka indhahooda ka yar qarsoon marka qaarkood ama caruurtu way yaqaanaan labada inay isqabaan samad garan dhunkasho aan akhlaaqda aan wax u dhimaynin samad garan inay labada qof mar walba isu dhawaadaan inay isla socdaan inay wada ordaan haday doona marka qaarkood tartan nabiga Aisha hooyada Aisha way tartameen nabiga alayhi salaam tartan bay sameeyeen labadooda way tartameen marka kullu dhalika ama lamasaade ama cutuuraade ama nadaraade iyo kuwii kale ka horeynay oo xagga caloosha ahaa waxaan u maleynayaa qisooyinka aad muhiim u ah oo dumar ku soo jiidan karaan ragga fiican waxaan rajeynayaa dhammaan walaalin daawanaya inay ka faa'iideysteen halkan baan ku gabagabeynaa barnaamijkeeni assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh